السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوين هورا طاهري أركاهن مدحوين كحجنا هورا شرقدون خلبضة قوله محكمة السراء حرالية هجود قولها وزير هذا مشرح حزب الوطني قدوميها حساب تقرنك يقرر قدوميها حزب الوطني يمرش حسابه ترياش إذا ما قلب كسي كردون دبلوماسيين تدقن dalka Soomaaliland ee ka soo qayb galay xuskan wufuud caalamiga ah dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad u hambalyeeyaa dhammaan shacbiga Soomaaliland meel ay joogaanba dalka dibadiisa iyo gudihiisaba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa muwaadiniinta reer Soomaaliland da kastoo yihiin rag iyo dumar meel kasta ay joogaan bishii u dambeysay wadaninimada dal jacaylka iyo difaaca dalka iyo horumarkiisa ay u jecel yihiin ay isu abaabuleen ay u muujiyeen nacabka Soomaaliland awoodooda iyo xoogooda iyagoo tusaaya in Soomaaliland tahay 3 jir waa marka qofka bini'aadmiga maskax iyo muruq ugu adag yahay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa meel aad joogtaanba gaar ahaan da'yar sii dhalatay intii dalka la xoreeyay dareenkooda aad iyo aad u kacsanaa waa ka mahadnaqaynaa haddaan nahay odayaasha dhammaantood maanta 3 sano ka hor baa dalkan dib loo xoreeyay taariikhda waa la wada hayaa ku dheeraan maayo badanna waa la joogay 1960 Juun Soomaaliland qaadatay xorriyadeeda dhowr iyo 40 dawlad baa ku ixtiraafay oo soo hambaliyay 26 Juun ka bacdi waxa fariistay golihii baarlamaanka ee Soomaaliland halka la yiraahdo goodirka iyagoo oo ka duulaya tibadii bariga jirtay ee shanta Soomaaliyeed in la isu geeyo waxa Soomaaliya ku hadda ay qaran ula noqdaan oo lagu soo uleeyay oo shanta meeloodba ay Soomaaliya degan tahayba ay tibadaas ka wada socotay Soomaaliland oo ugu hor qaadatay xorriyadda waxay ka dhabaysay balantay Soomaaliya ku balantay ee ahayd in la isla doono shantii Soomaaliyeed sidaa darteed iyada oo aad iyo aad u qadarinaysa ololaha Soomaali jacaylka ah dhibaatada u badan iyo martida u badan iyo halganka u badan iyo dhaqaalaha u badanna la hubo inay ahayd tii Soomaaliland u hoosaytaa ayaa go'aan ay gaareen baarlamaanka ay leeyihiin waa in maalinta walaaladeen 1 Juulaay ay qaadanayaan xorriyadda ay la midownaa wixii kale waxa inoo dambeeyeen hal xeer bay gudbiyeen oo ahaa xeerka midnimada sida lagu midoobayo labada dal xeerkaana way sii qaadanoo diyaaradda raacana waa u geeyay qolada Talyaanigu gumaysanayay waxay 1 Juulaay markii la isu tagay xagga ay xaggaaba bay igeen labadii baarlamaan bay isku dareen gudoomiyihii baarlamaanka waxa loo doortay in reer Soomaaliland dirqada isla habeenkii waxa la dhaariyay madaxweyne ninkii loo jiray Aadan Cadde laba dhowr maalin ka bacdi dowladdu soo dhisay Aadan Cadde dowladdaas waxay ka koobnay madaxweyne ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo 14 minister 14 minister saddex baa Soomaaliland laga soo yuubay waa cad quran 12 wasiir oo ay ka mid yihiin wasiirka khaarijiga wasiirka daakhiliga iyo كماليدو وحقاتي قراري سياري waxa Soomaaliland dawladda ka soo gaaray gudoomiye wasiir ra'iisul wasaare ku-xigeen xasan Quuli iyo gudoomiyihii baarlamaanka qaraar iyo 3 wasiir oo kala ahaa wasiirka tacliinta Cali Garaad maxamed xajraaci waxa difaaca iyo Axmed Kayso ahaa beeraha 3 wasiir ma ka soo raacay labadii taliya ciidanna waxa qaatay qolada koonfureed caasimadiina waxa qaatay Muqdisho dawladii dhammayd Soomaaliland qaybtaas ah maalintaas oo bilaabmay guul iyo caro iyo dareen ka dhashay halka wixii loo soo marina waa haysaanoo akhri doontaan ku dheeraan maayo caradii halka ka dhalatay waxay ku soo gabagabowday 30 sanadood oo aynu isla rafanaynay oo aynaa khayr ku wada joogin ee maalmo baadka dambaysa colaada dilka iyo cunaqabatayntu ay ku socotay Soomaaliland
koob iyo sagaashankii ayay ku burburtay dowladdii habeenkii julaay la isugu tegay ee habeenkaa colaadeedii cadheedu badatay ay bilaabatay intii ka dambeysay oo 3 sannadoodana wixii horay faleen wax ka weyn bay faleen 3 sannadood walaalayaal maanta waxaynu qabsanay iyo taariikhdeena iyo 3 sannadood waxba ku raagi maayo waa ka wada geysatay adduunkuna ogay laakiin halkay mashkiladu taallo yaalka dawladda laga doonayo baa sheegaya horta waa mide Somaliland sida caalamku ogyahay haddana aan sheegay maaha dalka goosanaya maaha gobollo dalka goosanaya sida Afrika ka baqato cid waliba waxay qirsatay inay laba dowlad isu tagay reportkii ay soo saaray wafdigii African Union uu soo diray 2005 go-aankii ay soo saareen waxay ahayd arrinta Somaliland way ka duwan tahay arrimaha kale ee khilaafka ee Soomaaliya Afrika ka jira waana ku fadhida sharci iyo ahaan moral ahaanba xaq u leh in hortooda dib loo eego way ka soo waad 3 sano ayaynu waxaynu u soo taagnaa wada hadal iyo in la isafgarto iyo in dee la kala garbayo waabay ka sii dartay koonfuriyo hadda 3 sano intay geysatay ee cunaqabatayn leh ee dhaqaalowdiida ee la dagaalan siyaasi ah malaha hadday nuclear hayaan Soomaaliya ku furahay caalamka qabaan garan maayo meel ka keenay 3 sano ka daran koob isagoo wax sameeyay sagaal shir baa la galay oo wada hadal ah muddo 10 sano ah mid walba wixii lagu heshiiyo waa ka baxa kuwii dambeeyay labadii dambeeyayna isafgarawaa iyo fashil bay ku dhawaadeen waayo Somaliland waxay la shirtaysay waxaanu nahay dal xorriyadiisii qaatay inaga idinkaana ka marxaatiya dadnaad inaga isugu dhow oo isku Soomaaliya haddana jaaro waxa wadaagna Soomaalidu Talyaanigu waa inaad idinku koob noqotaan inaad marxaatiga furtaan oo Soomaaliland la saartaan wax kale oo Somaliland maraya ma jiro muddo kasta qaato iyo wax kasta oo qaado kaarmo ku xidhay tusaale yar baan siinay halkay marayaan maanta xasan sheekhi dowladdiisa wuxuu baanka adduunka ku deeqay Soomaaliya oo dhan oo la yiraahdo loo qaybiyo sida dadku kala baday gobolada lacag ku dhow 2 bilyan point 2 bilyan dhibiciyada Somaliland waxay u soo qooday xasan sheekhi dowladdiisa ilaa iyaga annaga nimanka xukuumada Soomaaliya boqolkiiba 6.8 ma waxaasaynu geynaa ma waxaasaynu ku sii jiraynaa aqbal min caalamkana u sheegayna waxaan noo soo maray maaya wada hadallada gaba dhaxeeyo caalamka laga sheegaa iyagu say nooga qaaday intaas aan ku dhaafaya qodob kale oo seegay baan u sheegaya qolada Talyaaniga ku sentay waa dhawaato waxa heshiis galay Somaliland iyo Ethiopia qaylo dheer bay ka kaceen adduunka oo dhan bay dhiga barjeeyeen horta waxaan idin sheegayaa intaad garan weydeen idinku inaad taahdaan Soomaaliya laba dowladood isii baan ahay hadday toodi ay la noqdeen oo ayaga xoro waan ictiraafana horta taas ay idin kay kii Soomaaliya toona alla ma wafajina colaad iyo xooba ka sii qaaday haddaba dalka Ethiopia oo xadka u dheer la leeyahay oo dowladu weyn oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba aan iskaashi wanaagsan leedahay waxay ku dhiiratay wixii idinku ka maagteen oo ah Somaliland 3 sano waan la macaamilaynay waxay u qalan tahay la aqoonsado annagu waxaan soo jeedinaynaa inaynu wax iswadaagsano idinkuna saldhig ciidamo siisaan oo badeed annaguna aanu aqoonsano Somaliland koob ka noqono taasina ku sheegayaan وأبديرو شرعي أمباسر كان جوجي كسرة كها أمباسر بحاله وطلبه مرة أو مرة قيمة يرد يتوبيا إن القاضي يسوي حياة كمان قاضي إيش عشرة دولة حسن الشيخ وحي أدوها كل برجيسي إرجع حديد MOU على صحيحه والوهشيو وحلي حافظان لك وعندنا يريدوا الرجال دون شهاد بيجريان والدولة دا إثيوبيا عدوى قالوا عملوا دجالميان سيادة الشباب حوجي سنة منطقة قرارات أي نقطة لا تبدلوا الدولة هو وين أرجع أي شو وحصل حرف الشيء مركي حصل شيء الجزيرة كراها هي إذا على كرا كتر لها
إن أقولي هاي إثيوبيا إن الدولة أي كريسة بط صوماليا لكن وأنا إلى صوماليا إذا عذر بقسيدة جزيرة كريسة جزيرة سواء كهذا وحلا يابله وارميك وانا افتهافر ذلك أو حكومة وكسير يبضل أما ككرير الدولة كسرت الدولة واكرين حرت البلاد ما حكومة بس ويديني وحكومة دري إنه سفير كي إثيوبيا كيري حرب يسألون إثيوبيا قوم كان قبضتي سومالينا عالمكم مركها وحكومة جهورين ولما الدولة قلتك هو نبض الجود عليها وحليل هذه إثيوبيا كرب هذا عيدا كيد والنواد أبوها كهيا أمني وضع هيا قبل كهيران فكوم باي يجلو وإلى دور إلى هيران ويقول نبدي ساعة هذا يكبحان ساعة له أي حرب قصر ساعة شباب ما هم سأدرتي وحلوت ويرجع عليها وحاجات هذه أي تربية بحضور ما حد يدافع عيسى سؤال أمورك بدل إنك عالم بسودين يا واطن هو حكى حسن الشيخ ورمون صدق يسوع كيس صاروا يودن بيجي كمنان سوماليا أو كسماية جوجا أو بينما جوجا أو حد جوجا أو حمر جوجا أو سمرهم جوجا أو قال كعية جوجا أو بوساسية قروة جوجا أو سناك جوجا أو هرجيسة جوجا أو برعة جوجا أو بوربة جوجا كمنان اللي يروح الرق يدور بله أو جامعة إثيوبيا كصوبحي أيام مانتا أنت أبداً تعليمك إيه عافماتك إيه شقويك وحاب صارك هو هذا الصومالية بربطة هيا وأن لما نريد أولاد إثيوبيا إيه وحوا خياي ولما الشعب أي نقول لما الشعب أو إسقول وحوا قبسي إيه إسكاشي إيه مستقبل أركاية وايد جامعات بينهم سلطات بينهم وايد برتين وايد حقرين ولا بعمترية أروجا أولاد إيه نتفكريا فيها واحد كل تاعي إنسان يكون حديث على الجرنير حق الأسرة وحلا هاي هشيس يسوع هالجريا دوار هدي على هاي سمر بعد ما كبرتان وهو مدة قاتل وحوي مدة قاتل هشيس العلوم صورن وحلو بهاي هاي لنا ويسكي عليه وحوسيحيه أي جري قانون بدل عالمية عالم كسر حركة عالم كان لو بحيو سبيلا وحل لو هشيو سيدا لو هشيليا عند وربا وقتها بعنتها إيو أقول هدي الله يلاهو حقيقة أنت بدل واي كنا تديار جروجا فرصة إيا شرعي دوان هدي الله يلاهو وحل لو بجود ذا قرياش شرعي جدا برنامج السودان مركز وهرجليا أنا وهرجليا شركة كاسو ما موضوع هو أذن تاجرا أنت أسأل فيها دور شوي كول حام كور الله وحارة الله ياك دور شاي بكون قبل ميقب دور شعائل بسبب سياسات فرحان تلقي على إنه إيه هذا كل أنت هو إنه بدول وحينا هم هذه حسبي ودرنا إلى فريان ما حديثي بدوميه يوم مرشح لبا شاء الله والله على أساس إنه بدول حد الله وحده waxaan ku darayaa haddii la tartamo wax kastoo la ciyaarayo laanuuna ha ahaatee dee laba qofooda guulaystaan haddii wax loo tartamo oo madaxdooda loo tartama miduma ku guulaystaan labooda guulaysan maayaan waxaan leeyahay cabdiraxmaan oo aniga adigu dalka dadka qaranka noonu keen laga helaa ha haniyeeyo buuq dambe yuu jiri oo nifraani ku wada hadasha dadku dhan waana maqlaya taana taasaa ka eeg waxaan aad iyo aad u hambaliyeynayaa ciidamada qaranka oo had iyo habeen hawshay qabtaan aynu ognahay waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa halka ay dalka ka jiraan kala duwan ciidamada oo dhan amni iyo difaac iyo maxaan ku rahdaa murada socdaalka badda isku wada dal aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa
ولا جاي على ضد كبد كل يعني أول دراسات اللي ما كان سهوش هي أما أنا يقولون ولا جاي على واحد كنا إنه كان تابرة أو شوجا حرام من ديران تابرة إذا ما أو أريا كنت يلو سرقون تابرة إلا يمكن تابرة وشقي ودير بس حتى إنه برشلونة أو برشلونة سنة وديدي وحرام لها رجل صار تابرة لما جب هذا تريه تابرة كبر أي دون كل جب هذا أنت أصلاً بكسر صار قلت مركو العيدة قرانا نفتي سنة مدنية عروتي سنة مدنية عروت السودان لا والله مدنية دراها السودان قرق مدنية كل شيء هاي ما نشله ما كان صار تذكر عين كان في الأولى إلى الآذية النورهم لما انتهي أي نبوها معي مرة ما وحنا برينا ضمان شعب السودان للميل أي شولان ويدري وحاله قبصنا ولا مقبصنا ولا ريا وحي نويا لا وحي نقدر مركنا مقبصنا waxaan ku talinayaa dadkeenu inay ka baxaan maskaxda ah qanada caawiyo ilaah waa caawiyo aad buu caawiyo waxaan doonayaa Soomaaliland aan tuugsanayn qayrkeed ee tabcanaysa oo tabtanaysa ay doonayaan walaalayaal ninka dayaxa ku degay ama gabadha dayaxa ku degtay ka maskaxda qara ka wadnaha macmalka sameynaya ka waxaan oo la yiraahdo qalab dagaal ee drones ee maxayla sameeyay sagaal bilood ku gashay ma inaga sidoo ku dhalanay maxay dadka u bari meeynaas ka wada dhalan miyuu naga labiya miyuu naga aqli badaya way naga halkaas waa inay maskaxdeena ka saaraacideen caawi adduunyada waa la tartamaynaay bariyo ilaahay waxa Soomaaliya ina siiyay macdan bad xoolo dad wanaagsan dal wanaagsan oo adarkeen gool iyo jira wax laga qabsan karo marka way nagu ceeb ilaahay ida badan inoo soo tartamaano ay leedahay waardo caawinayna waxa layna siinayaa uu yahay cad quleed waa cad quleed markay yaqaano qolada aad iyo aad islaamka salaada ugu wanaagsan ee jibeysan ee haddana hay'ad ku waar waxa laga soo ururiyaa meelo diin aan islaamka aan ahayn marka diin loo eega miyaa marka la doorsanayo wax laga soo qaadanayo marka dadka waxa loo leeyahay diin saaysa u raac diinteenu waxay tiri gacanta saraad ka wanaagsan gacanta hoose wartaa Soomaaliland waa inay qaadataa oo aan lagu gaarin hay'adaha kala nooc oo qofka ka gudtada intaasina waa dardaaran waxaan markaa boodinayaa daayarta intii dalka xorey dhalatay fikradooda halkaa ka guurto yaanay ku habsaanin waxyaalaha aan khayrka lahayn ee qaada ee balwada ee tororada ee qabyaaladii oo sheegay daahiyad sheegay sida uu sheegay inta bay idinka ka rabaa inaad xorowdaan mustaqbalka dalkana idinka ay dadka waaweyn waxa jira waa dardaaran taas aan ku dardaarmaya mar labaad hambayo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh